Hello, we are VCS. maxaad kala socotaa ficilada iyo dagaalka hanjabaadaha lagu hayo xidiga iyo fanaanka kooxda BTS ninka lagu magacaabo Peter Young? Waa maxay ujeedada iska hor keentay taageerayaasha BTS Army iyo dhigooda kooxda magacaweyn ee Big Bang? Madaba inuu qalad ku sameeyay Peter Young, mid ka mid ah xidigaha kooxda Big Bang, iyo ninka la yiraahdo T.O.P. macquul ma tahay qaladkan dartii inay ku keeni karto hoos u dhac aanu ka fikirin iyo sumcadil gabi ahaanba aad weyn, xilli dad badan oo necab fanaankan gabi ahaanba ay ka faa'iidaysanayaan sheekadani sidii gabi ahaanba looga tuuri lahaa BTS. weli ma maqashay sheekada xiisaha badan ee View sameeyay mid ka mid ah taageerayaasha kooxda xilli awowgii gabi ahaanba uu ku sugnaa dhibaato daran? waqti weliba sheekadaasi gabi ahaan baan odhan karnaa waxay qabsatay baraha bulshada. ma runba inuu shubay dhiiggiisa isla taageerahaasi? waa maxayse waxa ka dhaxayn kara sheekadeena maanta iyo gabi ahaanba arrinta ku saabsan shubitaanka dhiigga garab istaagii waddanka Philippine ee ninka la yiraahdo Peter Young iyo maalmihii gabi ahaanba murugada badnaa? Therefore, fans worried that we being involved with or potentially being friends with T.O.P. will hurt his image. intaas iyo qodobo kale xiiso ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena maalinlaha ah. oo balse ka hor waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo sida quruxda badan aad ula falgashaan markasta muuqaaladeena idinkoo la garanaya subscribe dhayo ku soo biiray YouTube-keena Baldaab TV. waxaan idin leeyahay waan idin ogaay midaasi mahadsanidin saaxiibayaal. xidiga iyo fanaanka kooxda K-pop-ka ee BTS ninka loo yaqaano Peter Young ayaa dhexda ka galay muran iyo dagaalaad weyn oo geena soo dhaafay xilli trendiga Twitter-ka ay kala xidhatay labada kelmadood kuwaas oo iska soo horjeeda oo kala ah Peter Young feel free oo ah waxaa dareentaa xorriyad iyo ammaan, halka qolyaha kalena ay leeyihiin ereyga labaad kan oo cabsida iyo cadhada gabi ahaanba ay ka muuqato ahna leave the fandom. isaga bax fandomka amaba kooxda, waayo ma qalma gabi ahaanba qof u xun sidaadoo kale. arrintan ayay ka faa'iidaysanayaan dad nacayb daran u qaba tiimka BTS, halka badhkoodna taageerayaasha kooxda iyo kuwo kale oo ka mid ah fanaankan taageerayaashiisa ay kuwaasi ku garab qaateen, iyaguna gabi ahaanba ay ku biireen safka dhaliilaya fanaankan. balse taa beddelkeeda waxaa jira loyal fans ama taageerayaal daacada kuwaasoo gabi ahaanba difaacaya fanaankan qalad iyo saxba waxa uu geysto. haddaba maxay tahay dhibaatada aadka weyn ee uu geystay amaba dembiga uu galay Peter Young kaasoo ku sameeyay fanaanka kooxda magacaweyn ee loo yaqaano Big Bang iyo fanaanka dhigiisa lagu magacaabo T.O.P. BTS recently surprised fans when it suddenly followed the Instagram account of Big Bang's T.O.P. waxay ahayd wiigii la soo dhaafay markii Peter Young uu falowgareeyay amaba ku darsaday barta rasmiga ah ee Instagram fanaanka kooxda Big Bang ninka loo yaqaano T.O.P. fanaankan ayaa sanadii 2017 dhexda ka galay dhacda dambiyada aad u daran taasoo dhibaato iyo falxumo ku ahayd labadaba shakhsiyadiisa iyo kooxdiisa, kadib markii isagoo bixista ciidanka militariga South Korea oo diyaarsan uu isticmaalay marijuana oo ah daroogo aad u khatar ah, waana nooc ka mid ah xashiishadaha misana ah nooca ugu halista badan. heer uu gaadhay gabi ahaanba inuu miyir toorsamo, waana markii uu ku fashilmay gabi ahaanba inuu isticmaalayo daroogadan wax ka badan 5 sano. markii dambigaasi ku caddaaday waxaa lagu xukumay 10 bilood oo xadhiga iyo 12 kun oo lacagta waddankooda. fadeexadaas iyo dambiyo kale ay galeen xidigaha kooxda Big Bang ayaa loo arkay gabi ahaanba inay burburisay amaba hoos u dhigtay sumcaddii kooxda Big Bang, taasoo ilaa iyo hadda muddo ka badan 6 sano u maqan yihiin amaba aanay u soo laaban. Big Bang member Top, or T.O.P., whose real name is Chae Sung-hyun. haddaba khaladka ama dembiga lagu haysto Peter Young ayaa u dhigan maxay aad u falowgaraysay gabi ahaanba qof galay dembiyo noocaasi ah, halka taageerayaasha badhkoodna diidan yihiin tuunbaraaca iyo in kooxda BTS gabi ahaanba lugaha loo geliyo dhiiqa aanay ka bixi karaynin. waayo
maadaama oo kooxaha K-pop-ka gebi ahaanba lagu hayo ilgaara waana sababta qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha kooxda BTS ay ugu dhaliilayaan gebi ahaanba V inuu yahay qof nacasa amaba iska geli kara dambi kasta oo aanu tareensanayn waxaanay u arkaan gebi ahaanba sheekadani inay noqon karto raadraac aad u foolxun oo lagu soo galo kooxda BTS amaba gebi ahaanba ilgaara loogu eego falowgaraynta V Taeyang ninka la yidhaahdo T.O.B waxay abuurtay mixnad taasoo gebi ahaanba gilgishay baraha bulshada gaar ahaan barta Twitter-ka isla daqiiqadahaas waxa uu bilaabmay ayaan odhan karnaa V Taeyang dagaal ay ku qaadeen taageerayaasha kala duwan ee kooxaha K-pop iyo qaar badan oo army ah kuwaas oo leh waa qalad gebi ahaanba inaad falowgarayso qof dambiilaha haddii aad sidaasi samayso waxay la macno tahay inaad tusaale u tahay falalka xunxun amaba gebi ahaanba aad garab siinayso wrong person qaar kale ayaa iyaguna soo gelaya baraha bulshada mawjado qoraala kuwaas oo ah leave the fandom isaga bax kooxda amaba fandomka we don't need you anymore intaasi ka badan gebi ahaanba kuma baahnin waxaana tahay qof hooseeya amaba liita haddaba intaasi cagsigeeda waxaa jira dad taageeraya V Taeyang kuwaasi oo leh feel free waa inaad dareentaa nabadgelyo iyo xorriyad fanaankeenow mana jirta gebi ahaanba cid ku dhibi karta waa qasab inaan ictiraano privacy-gaaga ama waxyaalaha gebi ahaanba adiga ku gaarka ah iyagoo hadalkooda xagga dambe ka raacinaya haddiiba aad tahay army maaha inaad gebi ahaanba raalli ka noqoto dhaliisha ama foolxumada loo jeedinayo V Taeyang. The actions, some fans are against V's move, while others respect his privacy. haddaba waxaa mar kale dhibaato keentay in V Taeyang ninkii uu falowgareeyey shalayto haddana oo mar kale aan falow yidhaahdo isagoo malaha isla ku raaligeli amaba ka cabsanaya buuqa iyo cadaadiska saayidka taasoo shacbiyadaha kala duwan ee taageersan K-pop gebi ahaanba ay ku soo jeediyeen indhahooda wuxuuna isagoo ka fogaanaya buuqa iyo gebi ahaanba hadalhaynta faraha badan ee jirta amaba in loogu samayn karo dembi midaasi aan falow dib u yidhi ninkii la odhan jiray T.O.B markan ayuu haddana V ka hor yimi malaayiin qof oo kale kuwaasoo ku tilmaamaya qof daciif ah oo aan lahayn go'aan sidoo kalena waxay difaacayaan T.O.B iyagoo leh waa meel ka dhac gebi ahaanba fanaanka sumcaddiisa inaad ku tumato haddiiba aad jeclaatay inaad ku darsato boggaaga Instagram maxaa kugu kaliifaya inaad unfollow tidhaahdo adigoo ku taageeraya hadallada foosha xun ee laga sheegayo T.O.B kuwaasoo ah waa daroogayste amaba waa dambiile waxaanan gebi ahaanba u badan ayaan odhan karnaa dadka qaaska ee difaacaya ninka la yidhaahdo T.O.B taageerayaasha kooxda Big Bang iyaga oo muujinaya garab istaaga oo fanaankooda T.O.B waxayna leeyihiin qaladka iyo xumaanta intaba iyo ereyada foosha xun ee laga sheegaya gebi ahaanba fanaankan V Taeyang adiga ayaa u soo jiiday waa inaad raali gelisaa T.O.B qaladkan qalad la mid ah waxa uu sameeyey V Taeyang hadda ka hor markii uu falowgariyey barta rasmiga ah Blackpink Jennie isla daqiiqadahaasi waxay taageerayaashu fakereen in xiriir jacayl ka dhaxeeyo labadooda halka barkoodna ay dhaheen waxay noqon kartaa mistake iyo inay gacanta uga dhacday falowgaraynteeda walow ay jireenba qaar ku tilmaamay sheekadaasi saaxiibtinimo anyway V Taeyang arrintaasi kama aamusin muran badan kadib waxa uu soo geliyey baraha bulshada qoraal tilmaamaya inuu gebi ahaanba si qalada u falowgariyey amaba mistake Blackpink Jennie intaas kagama hadhin keliya ninka loo yaqaano V Taeyang sheekadaas waxuu haddana ku sii daray qoraalkiisa applicationka Instagram laftiisu inuu yahay scary application ama aalad gebi ahaanba aad oo cabsi badan taasoo mar kale loo arkay inuu dhaliilayo ku darsiga Jennie amaba uu ka qoomameynayo waana sababta dadku ay u leeyihiin waxaa tahay gebi ahaanba qof bilaa kalsooni ah oo daciifa waayo wixii aad hore u samaysay ayaa dib uga calaalaysaa halka barkoodna sheegayaan in qaladaadkiisan badan dartood V keeni karto inay hoos u dhacdo gebi ahaanba sumcaddiisa iyo sharaftiisu sidoo kalena midani ay kooxda BTS dhaawac ku tahay haddaba
waxaan indhaha laga qarsan karin marnaba balaayiinta qof iyaguna sida weyn u difaacaya Kim Tae-young iyagoo isku urursanaya amaba isticmaalaya magaca BTS Army. taageerayaasha kooxdan ayaa lagu yaqaanaa garab istaagga iyo difaaca caadiga dhaafsiisan xilli ay ku cabsi geliyaan shakhsiyaadka gaarka ah ee sida cad u ataagaya amaba wiilasha BTS nacab iyagoo ku difaacaya magaca BTS Army oo ah gabi ahaanba sida lagu yaqaano loyal fans. muuqaalkan oo inagu dheeraanayay dartii intaas ayaan ku soo afmeeraynaa sheekadeena maanta wixii ka soo baxana waxaan idin soo wadaagi doonaa insha Allah barteena YouTube ee Baldahab TV. like-ta subscribe-ta iyo sidoo kale inaad la wadaagta saaxiibada jecel arrimaha K-pop intaba waxaan ogahay inay waxyaalaha deeqsi ku tahay aniguna waxaan ku leeyahay waan idin ogahay markasta midaasi mahadsan idin saaxiibayaal.